ma ogtahay daawade in adduunka uu ka jiro naadi dadka qosolka ku daweeya. intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysad ma soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid. qosolku waa daawada ugu fiican. taasi waa fariin kaaga imaanaysa naadiga caafimaadka ee ku taala bartamaha magaalada Bombay ee dalka India. naadigan ayaa rumaysan in halkii mar oo 15 daqiiqo oo qosol ka kooban ay kor u qaado heerka nolosha, waxayna abuurtaa dareen xasilooni iyo badqab leh. saaka saacadu markay ahayd 7 subaxnimo ayay xubno ka tirsan naadigan waxay isugu soo aruureen xarun ku taala magaalada Bombay iyaga oo baranaya qosolka. sidaas waxaa warbaahinta u sheegay mid ka mid ah xubnaha naadigan oo warbaahinta la hadlay. isku imaatinkan lagu baranayo qosolka ayaa subax walba waxa uu ka dhacaa xarunta naadigan oo ku taala bartamaha magaalada Bombay ee dalka India. layliga koowaad waa in aad dhinacyada u kala fidisaa daamankaaga adiga oo soo saaraya dhawaqa astaanta u ah qosolka isla markaana dhool cadeynaya. xisadan qosolka ah waxa dhinac socota jimicsi inta badan laga sameeyo gacmaha. Dr. Kadariya oo ah aasaasaha xaruntan waxa uu dadka ku daweeyaa qosolka, wuxuuna aaminsan yahay in qosolka uu yahay hab la isaga soo saari karo culayska guud ahaaneed ee jirka. saameyntu waxa ay ka gudubtay gudaha dalka India. waxa uuna hadda aasaasaha shirkadan oo xisada qosol barasho ah ku bixiya habka fogaan aragga.